wadii toddobaad ee ugu dambeysay waxaan ogeyn kadib markii muuqaalkii wiilkii cadaanka ee cunsuriga ahaa Nick Charlie uu ka duubay daykeero ku yaala gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis oo intooda badan ay Soomaali leedahay kuna eedeeyay inay musuqmaasuq sameynayaan walow markii dambe la ogaaday in wax musuqmaasuq aysan ka jirin asagana hadda laga yaababa in arrintaasi lagu dacweeyo maadaama oo dad fara badan ganacsiyadoodii saameyn uu ku yeeshay waa tii dowladda federaalku gabi ahaanba soddonkii bishii lasoo dhaafay ee December lacagihii ka joojisay guud ahaan wadanka oo tiri cadeymo ayaan u baahannahay haddaba shalay waxaa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha gobolka Ohio Mike DeWine iyo haweeneyda gobolka Ohio u qaabilsan waaxda caruurta iyo dhalinyarada oo la yiraahdo Cara Wente waxaana ay shirkooda jaraa'id ku saabsanaa bal shacabka inay ku wargeliyaan oo ay ogaadaan in musuqmaasuq uu ka jiro daykeerada gobolka Ohio iyo in uusan ka jirin waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka uu sheegay in waraaq ay u direen wasaaradda caafimaadka oo lacagaha daykeerada siin jirtay 31 bisha walibana ay uga mahad celiyeen in sida ay doonayaan in musuqmaasuq ay ula dagaalamaan laakiin walina aysan jawaab ka helin in qaabka ay musuqmaasuqa ula dagaalamaan iyo sidoo kale in musuqmaasuq uusan ka jirin daykeerada gobolka Ohio ay u sheegeen haddaba shalay gudoomiyaha gobolku waxa uu sheegay in 5200 oo daykeeraha ay ku yaaleen guud ahaan gobolka Minnesota waxaana uu sheegay in musuqmaasuq 12% ah ay ku arkeen oo 0.2% haddii la fiiriyo waxaana sidoo kale uu sheegay in ay website-ka ay leedahay waaxda gobolka Minnesota u qaabilsan caruurta iyo waliba dhalinyarada iyo teleefankoodaba dadku ay kala soo xiriiri karaan haddii wax musuqmaasuq ay arkaan waxa uu sheegay in 61 goobood ay jiraan lacago dheeri ah oo 2 milyan ah oo gobolku uu siiyay markii la ogaadana xarumahaasi ay dib u soo celiyeen lacagahaasi dheeraadka ah oo gobolku siiyay waxaana sidoo kale uu sheegay in 124 cabashooyina amaba dad musuqmaasuq ka shakisan ay la soo xiriireen gobolka sanadkii la soo dhaafay ee 2025 waxa uu sidoo kale sheegay in 12 xarumood la xiray waxaana uu xaqiijiyay in 30 xarumood ay heleen si sax ah inay u shaqeynayaan 22 kamidana wili review oo ku socdo oo dib u eegis lagu sameynayo waxa uu yiri 10,000 oo waxaan sameynaa booqasho aan horey loogu sheegin goobahaasi daykeerada oo sanadkii la soo dhaafay lagu tagay waxyaabaha la eegayay waxa kamid ah in wax musuqmaasuq ay jiraan amaba sidoo kale waxa la eegayaa xaaladaha caafimaad ee goobahaasi caruurtu ma tahay meel aysan wax cudurraha ka qaadi karin safety-goodana waa siday dhinaca badqabkooda gabi ahaanba waxyaabahaasi ayaan eegnaa ayuu yiri marka waxa uu sheegay in aysan jirin wax musuqmaasuq ballaarana oo ay heleen marka waxa la weydiiyay su'aal la xiriirtay sababta Soomaalida oo kaliya daykeerada leh loo bartilmaameedsanayo oo musuqmaasuq loogu eedeynayo oo Soomaalida oo kaliya musuqmaasuqan dusha looga saarayo waxa uu yiri laba dhinac haddii aan ka fiirino musuqmaasuqa markii aan baaraynay waxaan aragnay dad aan Soomaali ahayn oo musuqmaasuqa ku kacaya waxaan sidoo kale aragnay ayuu yiri dad Soomaali ah oo iyaguna asal ahaan Soomaali ka soo jeeda oo iyaguna musuqmaasuqa ku lug leh laakiin wuxuu yiri anaga shaqadeena ma ahan qofka musuqmaasuqa sameynaya meesha uu ka soo jeedo laakiin muhiimadeena waxa ay tahay in aan musuqmaasuqa aan la dagaalamo isla markaana aan ogaano waxyaabaha sababaya iyo sidoo kalena meelaha nala ka soo gali karo oo aan ka nugulnahay sidaas darteed waxa uu tusaale ahaan u soo qaatay waalidku marka uu caruurtiisa geynayo goobta daykeerka waxa jira bin loo baahan yahay inuu galiyo oo sawir ka qaadayo waxa uu yiri waxaan ogaanay in waalidiinta amaba dadka mas'uulka ka ah caruurta in oo kaliya ay binkaas ugu talagaleen waxaana lacagta aan ku bixinaa ayuu yiri ilmuhu marka ay tagaan goobta daykeerka laakiin inaad inta ka diiwaan geliso ilmahaada ay gurigaada ku joogaan lacag kuma helaysid marka waxaan ogaanay yiri goobaha daykeerada in waalidiintu binkii ay siinayeen arrintaasi oo qalad ah musuqmaasuq bilowgiisana ah sidaas darteed waxa haweeneyda u qaabilsan gobolka Minnesota waaxda caruurta iyo dhalinyarada oo Cara Wente la yiraahdo ay sheegtay sanadkii la soo dhaafay inay bedeleen 7500 oo bin oo la ogaaday waalidiintu dadka daykeerada iskale inay la wadaageen marka ilmihiion imaan oo guriga jooga waxa inta la soo waca la leeyahay
biinkii ii geli maanta inaan jooga ka dhig arrintaasi marka waxyaabaha musuqmaasuqa sababi karto ayay ka mid tahay ayuu yidhi sidaas darteed waxa uu sheegay muhiimaddu waxay tahay inaan focuska saarno musuqmaasuqa nafsad ahaantiisa laakiin waxa uu yidhi ma jirto sabab hal bulsho oo keliya in dusha laga saaro musuqmaasuq waxaana uu xaqiijiyey in arrintaasi musuqmaasuq ay tahay mid aan la dagaalamayno soomaalidu waxa uu yidhi muddo fara badan ayay waddankan joogeen islamarkaana sanado ka hor ay yimaadeen intooda badanna waa muwaadiniin ganacsina waa ay leeyihiin marka in bulshadaasi oo keliya dusha laga saaro musuqmaasuq ma ahan waxa uu yidhi waxaan u baahannahay problemka inaan diiradda saarno oo musuqmaasuq ah inagoo wada jirnana oo wada jir ahna aan ka fikirno sidii aan u joojin lahayn musuqmaasuqaasi arrintaasi ayaa waxay tahay waxyaabaha loo baahan yahay inaan samayno haddaba gudoomiyaha gobolka ohio arrintaasi uu ku difaacayay dadka soomaalida waxa uu yidhi There's two ways of saying it, and they're both true. What we found in fraud in Ohio has certainly included people who are not Somalians. Has it also included some people who have a Somalia background? Yes. So both things are true. So, you know, we don't care who's committing the fraud. We go after that, do whatever we can to stop it. So I think that, you know, we need to, in this discussion, I think, focus on fraud itself and what we're doing. And look, we always evolve as we see what we think is causing fraud or we see some vulnerabilities. You know, the easiest example is the PIN example. There was no reason that many of the facilities had the PINs. Now, as Kara said, we can't say that they were committing fraud, but they had no business with those PINs anyway. And so going to do what you can to eliminate that. So the vast majority of Somalians have been here for a long time. I mean, this influx that came for most of Somalians for a number of years ago. Many of them are citizens. Many of them run businesses. So, you know, we need to just not fixate on any population. We need to fixate on the problem. We need to fixate on the fraud. We need to focus on what we can do collectively, all of us together, to stop fraud in Ohio or stop fraud in any other state. That's what we need to do. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka ohio waxa uu sidoo kale ka hadlay dadkan youtuberada oo kaamarooyinka la wareegayo minnesotana tegay haddana ohio joogo oo dhahaya dhaykeerada iyo musuqmaasuqooda ayaan baaraynaa waxa uu yidhi in sabab ma jirto dhahay qof kaamara wato in inta uu ku yimaado albaabka kuu soo garaaco aad uga furayso waxa uu yidhi ma ahan inaad ka furto dhahay haddii uu kuu soo garaaco waana sida saxda ah maxaa yeelay wuxuu yidhi halkaasi caruur ayaa ku jirta caruurtaasina mas-uuliyadda gobolka ayay ka saaran tahay marka wuxuu yidhi waxaa loo ogolaan karaa waalidka ama qofka mas-uulka ka ah ama dadka volunteerska oo meesha ka shaqaynayo oo weliba background check lagu soo sameeyo dadkaasi maxaa yeelay caruur ayaa meesha joogta mas-uuliyaddana annagay dusha naga saaran tahay marka ma ahan uu yidhi in qof iska socdo inta uu soo garaaco uu yidhaahdo musuqmaasuq ayaan baarayaa ee albaabka iga fur halkan lama joogo oo caruur ma joogto arrintaasi wuxuu yidhi waa qalad mana ahan in arrintaasi ay dadku ay sameeyaan wuxuu yidhi sabab ayaan u sameynaa 10,000 oo baaritaanka aan ku samaynayno goobahaasi waxaana uu sheegay in ay hadda mar kastaba aan raadinayno wadooyin cusub oo musuqmaasuqa aan kula dagaalano shacabkana fikradahooda waan soo dhawaynaynaa hadda sanadka cusub xitaa waxaana soo gaaro yiri cabashooyin fara badan laakiin cabasho kasta ma ahan in ay sax tahay oo mid musuqmaasuqa laakiin mar kastaba waan soo dhawaynaynaa yiri in dadku ay noo soo gudbiyaan cabashooyinkooda website-ka iyo telefoonka ay noogu soo gudbiyaan laakiin dadka wuxuu yiri sababta aan shirkan jaraa'id u qabanay waxay tahay in aan community-ga u sheegno qof kasta in dhaykeerada aan la iska geli karin oo qof iska socdo camera wato intuu yimaado uu yiraahdo ma geli karo waa run ma geli kartid maxaa yeelay goobta caruur ayaa ku jirta amarna uma haysatid inaad gasho waalid ma tihid ilmaha mas-uulka ma tihid dadkii volunteerka oo meesha ka shaqaynayana ma tihid isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri gudoomiyaha gobolka Ohio Mark DeWine. One of the reasons we're doing this press conference is to try to get out to the general public what the facts are. And you know, the facts are that there's a reason that citizens who are going up and trying to video something and trying to see what's going on inside the doors aren't being allowed in. We do 10,000 inspections a year, and we do more when we get more complaints, complaints. But the public needs to understand if it's your child in there,
You don't want a random person to be able to knock on that door and get in. They have to have a reason to get in. They have to be a parent to get in. They have to be a guardian. They have to be someone who's responsible for that child. Or they have to be a volunteer who's already been cleared with all kinds of background things. So we're careful with our kids in Ohio. And I think people should expect us to be, and should demand that we do that. So there shouldn't be a shock when you see something on social media and someone is going, I can't get into this place. No one will let me in. Well, hell no. No one should let them in. You should let them in. Fraud does occur. And if we think fraud doesn't occur, we're wrong. It does occur. And our job is to do everything that we can and constantly look for new ways to stop fraud. And we welcome, let me say it very clearly, and you can see we've always welcomed tips. And doesn't mean every tip plays out, but if somebody feels, hey, there's something wrong going on in that place, there's some fraud going on, we want their tips. We've always wanted their tips. We appreciate the fact. We welcome those. So we want the public's involvement. But going to a daycare center, whether it's run by Somalians or whoever it's run, you're not going to expect to get in unless you've got a reason to get in. dhinaca kale reer Minnesota waa St. Paul iyo Minneapolis Buckle Up isdiyaariya 2,000 oo ciidamo ICE ay ka mid yihiin ciidamada xuduudaha ilaaliya CBP-da ay ka mid yihiin iyo waaxda sidoo kale u qaabilsan wasaaradda amniga gudaha dhinaca baaritaanada musuqmaasuqa ayaa Minnesota la keenay xitaa shalay waxaan arkay wasaaradda amniga gudaha ay dhahayso Hotel Hampton in la yiraahdo oo Hilton oo company-gaas uu leeyahay in ay iska soo dalbadeen ama reservation ay ka sameysteen kadibna laga kansalay walow markii dambe hotelku raali gelin uu ka bixiyay hoteladu waxay ka baqayaan dadka kale oo macaamiisha hotelku u jiifa maadaama ICE marka la ogaado inay hotelka joogaan muddooyinkii dambe la tagayo mudaharaad lagu hor sameynayo hoonka lagu yeerinayo frimbi lagu yeerinayo sidaas ayay ka baqayeen marka hadda waxa la leeyahay 2,000 ayaa lagu soo daadiyay magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul xilliga 3 o'clock oo 9 saac habeenimo iyo inta badan ay baaritaanada ay bilaabaan marka hadda waxaan arkay isla saakaba waa ay bilaabeen Cedar waxa lagu arkaya ciidamo ICE marka ciidamada ICE waxay yiraahdeen howlgalkii December 2deedii ay bilaabeen oo ilaa iyo Christmaskii 25kii socday 1,000 qof ka badan ayay ku soo qabteen oo dad dambiilayaal ah iyo kuwa wadanka sharci la'aan ku joogaya shalay wasiirka amniga gudaha waxay barteeda X ay soo gelisay in 12,000 oo kamid ah ciidamada ICE kuwa dhawaan la shaqaaleysay in guud ahaan gobolada Mareykanka la kala geeyay waxayna tiri sharcigii the big beautiful bill oo madaxweyne Trump uu saxeexay bishii July 4 sanadkii hore in uu suura geliyay in 220% ay kor u kacdo waxqabadka ciidamada ICE marka ICE hadda meel kasta oo Mareykanka ah way joogaan howlgaladana waa ay ka wadaan hal laga digtoonaado gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo shalay ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka xilka gudoomiyaha gobolka doorashada dhacaysa dhamaadka sanadkan ayaa la weydiiyay su'aal ahayd maanta mar uu shir jaraa'id qabtay cadaadis dhinaca Washington kaaga yimid oo arrimahan musuqmaasuqa la xiriira darteed miyaad tartanka doorashada uga hartay mayuu yiri anigu go'aan aan shakhsiyan gaaray ayay ahayd arrintaasi waxa uu sidoo kale ka hadlay gudoomiyaha gobolka Minnesota 2,000 oo ciidamada ICE iyo kuwa ciidamada xuduudaha ilaaliya iyo kuwa wasaaradda amniga gudaha oo Minnesota ay dawladdu keentay waxana uu yiri maxay ka soo dooneen ma inagay nala shaqeynayaan waxana uu sheegay in dagaal dhinaca Washington uga imaanaya ay kula jiraan weerarkaas inuu yahay mid joogto ah oo lagu hayo waxa uu sheegay maadaama hadda uusan siyaasad ka fikiraynin in uu u dagaalami doono jiritaanka gobolka Minnesota iyo waliba dadka reer Minnesota waxana uu sheegay in arrintan ay tahay mid aan gabi ahaanba loo dul qaadan karin in ciidamo intaas la eg loo soo diro magaalooyinka Minneapolis iyo waliba St. Paul isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri No, I think it's a personal decision. It's effectiveness. I never took this job to be governor. I took the job to pass things like paid family medical leave. I don't think any governor in history has had to fight a war against the federal government every single day. And I'm going to fight this without having to spend any time worrying about the politics of this. I'm going to fight it, making sure that Minnesotans are cared for. I'm going to fight it by doing the respect that we should have for rule of law. So I just think all of you see this. It is just going to be relentless. Why 2,000 folks? What are they coming? Do they want to coordinate with us? We are under assault like no other time in our state's history because of a petty, vile administration that doesn't care about
the well-being of Minnesotans. My job is to protect the well-being of Minnesotans. So the good news on this is Republicans are sure they're going to lose the governor's race dramatically. ugu dambeyntii jamaal cusmaan oo ka mid ah dowladda hoose lagana soo doortay degmada lixaad oo doorashadii November 4 dhacday ku guuleystay ayaa shalay la dhaariyay shalay 13 xubnood ee ka tirsan dowladda hoose ee Minneapolis iyo waliba maayarkaba shalay ayaa la dhaariyay oo xaflad la qabtay xitaa Soomaaliya ayaa ka soo qayb gashay dhaanta ayaa lagu ciyaaray marka waxa markii xubnaha la dhaariyay kadib oo Jamaal aad arkaysaan waraaqda shahaadadiisii markii uu saxeexay kadib waxa ay yeesheen kulan waxayna dooranayeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka Jamaal Cusmaan ayaa waxa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka xubnaha dowladda hoose ee Minneapolis waa markii ugu horeysay qof Soomaaliya oo madaxweyne ku-xigeenka noqdo isaga oo kaliya ayaa isa soo sharaxay cod ayaa la geliyay 13 xubnood 7 kamid ah ayaa u codeeyay yes dhahay 6na waa ay diiday sidaas darteed ayaa madaxweyne ku-xigeen uu ku noqday waatan markii codka ay xubnaha dowladda hoose u qaadayeen madaxweyne ku-xigeenka oo uu ku guuleysanayo waliba loo sacbiyay hambaliyo ayaa leeyahay saaxiibkay Jamaal in xilkaas lagu dhiibay waan huba waliba in aad ka soo bixi karto. Are there any further nominations to the office of Vice President for City Council? Are there any further nominations? Seeing none, the period for nominations is now closed. And again, council members, I will remind you that we will proceed to vote on the nominations in the order that they have submitted. We will begin with a vote on the nomination of Councilmember Osman, representing Ward 6, to the office of Vice President. The clerk will call the roll. Councilmember Payne. Aye. Wansley. Aye. Rainville. No. Vita. No. Warren. No. Osman. Aye. Schaefer. Nay. Stevenson. Aye. Chavez. Aye. Chugtai. Aye. Whiting. No. Chowdhury. Aye. Palmisano. No. There are 7 ayes and 6 nays. That motion passes. Councilmember Osman has been elected Vice President. Congratulations.